بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشدة أورجانيك شوب وكم هتسنتين حريركينا وناكسن iyo su'aalihiina annagana waxaan rajaynaynaa jawaabaha idin siinay inay yihiin jawaabo runtii aan isleenahay wax badan bay ka bedeli doonaan hab nololeedka bulshada Soomaaliyeed nagu tixan runtii anana rajaynayno wax badan oo jirkooda ka dhintay guda iyo dibad midkay tahaba inaan qayb weyn ka qaadano inay ilaashadaan oo ku kaalmayno inay isdaryeelaan oo is ilaaliyaan iyagoo waajibaadka laga rabaa oo ay fara badan yihiin mid aakhire iyo mid adduun labadaba maaragtay maanta marka muntijaadka aan jecelnahay maanta ama badeecada aan jecelnahay maanta organic shop inaan xogo idin la wadaagno faahfaahinahooda qaar kamid ah maaragtay waxa kamid ah geedkan la yiraahdo murinzi geedkan la yiraahdo murinzi ayaa la macnaha muringa maaya waa murinzi weeye geedkaas waa geed ka baxa bartamaha adduunka meelaha bartamaha oo maro iyo badanaa ka baxa ama khat al-istiwaa'i afka qalaad ama maanta maaragtay equatorialka lagu yiraahdo marka geedkaas waa geed runtii aad u faa'iido badan min Haiti ilaa Malaysia ayuu saas ugu baxaa maaragtay dhulka uu aad ugu fiican yahay oo maaragtay meelaha qorraxdu ama ceedu ilaahay uu miisaankeedii siiyay ama bartamaha dhulka ku aadan ayay aad runtii uga baxay waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala oo fawaa'id fara badan oo yeelay gudihiisa caleentiisa hadday noqoto laantiisa hadday noqoto jiridiisa hadday noqoto mirihiisa hadday noqoto intaasba ilaahay subxaanahu wa tacaala fawaa'id fara badan oo yeelay marka shirkadda waxay aad u jeclaysatay in ay isku daydo bal fawaa'idiisa inay ay aad u baarto kadibna markay aragtay inay runtii aad iyo aad u qiimo badan yahay in bulshadii markaa loo fududeeyo inay markaa isticmaalaan ama istihlaagaan ama ay markaa caafimaadkooda ku daryeelaan murinzi runtii geedku saan weeye murinzi baa la yiraahdaa magaciisi waa kaa isagoo carabiya isagoo luqadda qalaad ku qoranna waa kaa murinzi macnaha scientific ahaan marka la yiraahdana waa nuuni ayuu noqonayaa NONI marka haddaa goolka gelisaan wada arki doontaa waa geed runtii subxaanahu wa tacaala fawaa'ida iyo maaragtay khayraadka ugu talagalay dayibaadka ummadiisa ugu talagalay ayuu ka mid yahay maaragtay marka murinzi annagu waxaan haynaa isaga wax sida faktiya lahayn sharaaba la cabayo mararka qaarkoodna laga yaaba kabarigooda oo soo hadda aan filayno inuu isagoo oo kuuskuusan oo kenya camal soo saaro si ay ugu fududaato markastana waa waxaan isku dayaynaa in nolosha dadku ay la socoto technology maadaama ay socoto oo yani stresski iyo degdegii iyo ay badan yihiin in markasta wixii la fududeeyo si ay qofka ula jaan qaadi karaan hadduu xafiis dhiganayo hadduu gaarigiisa dhiganayo hadduu dhowr guryo ay jiraan guryihii kala dhiganayo wax markasta inuu wadwado ay u fududahay ayaan maarta isku dayaynaa marka murinzi runtii waa geed macnaha marka anagu aan eegno canuuniga uu egyahay dhowrtiisa isla markiiba familika canuunka ayaa kugu soo dhacay marka aragto soo uu egyahay maaragtay haddaa u fiirsataan macnaha ka magaciisa ahaan isla markiiba canuunigu kuula ekaanaya maaragtay geedkii marka maxuu taraa marka isagu kow wuxuu u fiican yahay dheefshiidka labo wuxuu u fiican yahay miisaamida bakteeriyada fiican iyo bakteeriyada xun macnaheedu yahay inuu bakteeriyadii xumeedna jirka kala dagaalayo oo jirkii wuxuu ka dhigaya waxyaabahan doogga la yiraahdo afka Soomaaliga doog camal ka dhigaya yani meel doog oo cagaar oo ka dhigaya jirkaagii ama bal la yiraahdo luqadaha kala maaragtay alkaline yoo ka dhigaya maaragtay alkaline waxa ka soo horjeeda gaas ka soo horjeeda macnaha dhul gaas oo ku noolaa karo ma aha maaragtay ama qalow luqada carabiga soo yiraahdo marka maxaa dhacaya markuu jirkaagii oo doog u bato waxa dhacaya in bakteeriyadii xumeed ay meesha ku bada weydo oo bakteeriyadii fiicneed ay badato marka waa labaduba waa jiraan bakteeriya xun iyo bakteeriya fiican labaduba waa jiraan jirka marka midda fiican markay ku badato gaaskii baa ka yaraanaya ololkii caloosha yaraanaya wixii kula kala rugmanaya yaraanaya macnaha jirkii baa markaa isagu iswada oo unugyadii baa miisaamay weey marka taas way aad u waxay kale aad ugu fiican tahay dheefshiidka aad ugu fiican tahay waxay aad ugu fiican tahay mindhicirada labadooda nooc kan yar iyo kan weyn qaaloonka midka la yiraahdo qaaloon casabi macnaha qaaloonka neerfaha aad ugu fiican tahay maaragtay waxayna anfacaysaa jiil kasta cabi kara ilmo yar qof xaamila qof waayeela qof dhalinyara cid walba cabi karta khaasatan dadka dhibaatooyinka xasaasiyadda ka sheegta jirka gudihiisa waxay kaloo siinaysaa jirka inuu ismiisaamo heerkulkiisa
hurdadiisa inuu qofka aad iyo aad u maartay dadka dhahaya ariga caloosha ka buuxdo meeshaan ay xanuunay hadba dhinaca qabsanaysaa wuxuu aad ugu fududaynayaa inuu qashin saarka oo suubiyo fududeeyo ay ka mid tahay hawadu maaragtay taas awood qofku markuu bilaabo wuxuu dareemi doonaa isbedel 3 maalmood gudahood ayuu isbedel dareemi doonaa marka laba qaybood weeye qaybna waa 800 700 milimitir weeye qaybna waxa weeye waa isagoo oo yar oo laakiin maanta maaragtay 200 marka saas oo noqon marka waa quraanad weyn tiro quraanadaya labadaas faa'iido ayuu ka leeyahay isagoo waxa jira marka isagoo waxa jira isagoo macaan ayaa jira taas macnaheedu wuxuu aad ugu si fiican yahay enzymeskiisa iyo fawaa'idiisa fara badan laakiin dadka aan sokorta lahayn buu ka macaanka u afacaya midka kalena dadka oo dhan baa loogu talagalay wax macaan maraa xumuurta uu egyahay ama rakay waxyaalaha la yiraahdo marka la qasay uu egyahay marka runtii waa geed aad iyo aad u faa'iido badan wuxuuna ka mid ahaan doonaa macluumaad aynu gadaal ka keeni doono oo loo yaqaano 3 geesoodka maaragtay dahabiga ah ama 5 geesoodka dahabiga ah mid kamid ah ayuu noqon doonaa maaragtay runtii waa geed aad u faa'iido badan maxaa loo cunaa marka subaxii aroortii caloosha maran ayuu qofku 3 qaad ka qaadanaya haddii uu xoogo uu daran yahana habeenkiina 3 qaad uu qaadanaya laakiin caloosha aroorta hore iyadoo maran ayuu ku qaadanaya markuu salaadiisa subax soo tukado oo ku tuuranaya maaragtay marka runtii wuxuu ka mid yahay geedaha aad iyo aad u faa'iido badan ka qaadatay kambaniga 8 ilaa 9 sano inuu ogaado fawaa'idiisa iyo dhibka uu leeyahay marka waxa soo baxday inuu aad ugu faa'iido badan yahay qofka ibni aadamka ah taas ay keentay marka kambanigu inuu maaragtay idin la soo wadaago waana ku mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu